السلام عليكم بريان waxaa zaid la isoo weydiiyaa Ibrahim inaan kala tagnay haday lambar noqoto telefoon oo wicitaan iyo haday noqoto message oo yaani comment ahaan la isoo qoraayo Ibrahim waan kala tagnay ani isaga calafkeena intaas ku ekaa halkan cunugu calafkeena ku ekaa waan kala tagnay alxamdulillah waliba aniga umul ayaan kala tagnay ani isaga oo saas ku kala baxnay alxamdulillah binti aan wada joognayn alxamdulillah hadaan kala tagnay waxaan leeyahay waa alxamdulillah wiil walaalkayna adeerkay waa markastaba waan kala tagnay Ibrahim mar dambe la isoo weydiinin inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano ima soo weydiin karaan ninkii rabo haraadsada asaga magaalada dhagaxleed dadka oo yaqaan wixii joogo dadka maqalna wixii garanay ha weydiistaan asaga aniga mar dambe la isoo weydiin fadlan yaana la isoo wicin iyadoo Ibrahim la weydiinayo ani Ibrahim waan kala tagnay horeyba ani isaga iskuma aan tolnayn aniga kaligeena la iima gudin ani asaga saasad ogaanaysan asxaabay waa in salaam asxaabtu assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waan in salaamay dhammaan khiyarta meel kasta joogtaan waxaan rabaa insha Allah halkan maanta inaan ka hadlo hadalhayn badan oo baraha bulshada qayb ka mid ah ka socoto taasi oo sheegayso in ay kala tageen gabadh la dhihi jiray Istar Libaax iyo ninkeeda haddaba arrintaasi maxaa ka jiray maxaa ka run ah waayeen dambe waxaa soo batay baraha bulshada in prank waxa la yiraahdo iyo waxyaabo inta badan bulshada aysan fahmi karin in mataqaanay la hadal hayo ama la soo jeediyo kadibna markii dadka run u qaataan la yiraahdo waa been iyo wax la mid ah balse intaan guda galeen ka hor haddii aad ku cusubtay channelka subscribe like share inta wasaaro waxaan maanta ilaa shalay u dabaaldegaynay dhalashada mid ka mid ah saaxiibadana Cabdiraxmaan Khaliif oo ay hadii dhalashadiisa waxaan halkan aan ka leeyahay hambalyo dulka sabtaan u ahay marka hambalyada ka qayb qaatay insha Allah Istar Libaax waa gabar youtuberada TikTok aan isticmaasho ku nool xariyaha dadaab gaar ahaan dhagaxley aniga aqoon gooni ah ma taqaanayaan u leeyahay waxaan maanta daawaday muuqaalo dhowr ah oo dadka isku dirdirayeen ayna sheegayso in ay kala tageen xaajigi ay wada joogeen iyadu marka kala tagu sidiisaba dhib ma laha laakiinse xaaladdu waxa ay tahay maxay u kala tageen maxaa sababay iyo wax la mid ah saan la wada soconayba kow markii u horeysay ay wiilkan iyo gabadhan ay isguursadeen waxaa ka soo maaxay dadka Soomaaliyeed waliba dumarka u badnaadaan dumar iyo rag intaba in ay yiraahdeen wiilkan waa la khalday islaan ka weyn baa guursatay halkaasi shoog baa ka yimid iyo khalkhal la geliyay guurkii wanaagsanaa ee wiilka ay gabadhaasi iscalmaday ay sameeyeen arrintii laguma dayrinay waa la daba socday doodii way sii dheeraatay laakiin ilaahay waxa uu ku irsaaqay in ay mataqaanay ay caruur ay kala helaan waxaad arkaysaa qofka bini'aadanka siisa markii shay lagu celceliyo haddii maanta lagu yiraahdo waad waalan tahay bari lagu soo noqdo waad waalan tahay barina lagu soo noqdo waad waalan tahay maanta waxa qaanaysa inaad waalan tahay wiilkan iyo gabadhu waa laga badbadiyay dadkii ma taqaanay si khaldantii loo qaatay yaa laga badiyay xataa gabadhu waxyaabaha qaar ay sheegtay waxa kamid ah hadda ka hor in ay tiri dumar baa intay isoo wacaan bay dhahayaan ninka anaga naga guurstay ee noo furo ha ku furo marka seebuu u furi waaba qabaa wuu calmaday adiguna mid baad helaysaa markuusan joogin maxaa u guursan weyday hadda lafteedabu waxbaa ka banaan maxaa mataqaanaa u dhihi weyday walaas guursanno taasi waxay ahayd khalkhal la geliyey oo baraha dadka bulshada ka imaanaysay arrinta eedaheed marka waxay saameyn dambe ku yeelatay in waalidkii wiilkii arrinta mataqaanaa marka horena raalli ku ahaa inay kasoo horjeestaan maanta markii lagu yimaado loo dhawr wiilkaada waad laqmisay islaan ka weyn baad u guurisay miyaad nacdeen hormaana nacine ninka mataqaanaa waa guursaday reerkiisa meel u degan waa beeshaa barwaaqay ku jiraan maxaad ka rabtaa bari qof kale socdaa ku imaan war hebel ninkii laqmaday soo adiga maada dhalin ninkii laqmiseen markii lagu celceliyo de markii dambe waxaad leedahay marka war xaaladun ma sahlana
waa isma muusinaysaa ma sahlana tiiba marka waxay kaliftay marka waalidku inay wiilkii yidhaahdaan duca iyo habaar mid inaad gabadhan aad sii dayso iyo in aad mataqaanay habar aad qaadato taas waxay sababtay in ay kala tagaan iyo sababta waxaan arkaynay u jeednay in jacayl badani uu ka muuqday markii mataqaanay ay wada joogeen oo iyaga oo xero qaxooti ah haddana in ay u noolaayeen sidii boqorradu waxaan wada arkaynay in u jeednay baraha bulshadana mataqana la soo gelinayay iyo mataqana ayuu ahaa nolol wanaagsan bay mataqana ayay haysteen faraxsan bay haysteen dad isku faraxsan bay mataqana ayay ahaayeen waxaa la joogay hadda xilligii noloshoodu mataqana ay sii baraari lahayd hadda cunugii u horreeyey mataqana u dhashay in aan ku kaaleyno aan mataqana garab istaagno yay ahayd laakiinse dad baad arkaysaa ku faraxsan maanta kala tagooda oo kule way kala tageen waa alxamdulilah islaantii weyneed cunug way sixiratay iyo waxa lamid waraysiye iyaga horay ay u bixiyeen yaa waxa ay ku sheegi jireen inay ahaayeen lamaanaha qarniga marna aysan suurtagal ahayn in dad soo kala dhexgalay ama u sheekeeyey in ay hadalkooda qaadanayaan laakiinse dadku sidiisaba carabkiisa waxaa weye haddii waxaan dhowr jeer uu kugu celceliyo marka dambe runbaad u qaadan tiina way dhacday maanta oo wiilkii iyo gabadhii way kala tageen weliba mar aan la xiriirnay waxa ay inoo sheegeen in arrintan iyada khilaafkan uu bilihii u dambeeyey mataqaanaa socday khilaafkaasi markii uu daba dheeraadayna kadib ay noqotay gabadhii in ninkii ay kala tagaan khilaafkaasina inta badan uu mataqaanaa ka socday dhanka wiilka oo ahaa hadallo badan oo dadka baraha bulshada ka imaanayay in ay saameyn naftiisa mataqaanaa ay ku yeelatay hadda waxa ay rabeen inay noloshooda wax badan kasii bedelaan inay Nairobi imaadaan youtube-ka hadda ay haystaan iyo mid kaleba inay furtaan inay caalamkaas mataqaanaa ay la jaan qaadaan ay lacaga fiican mataqaanaa ay sameeyaan yay rabeen laakiinse cadow badan baa helay oo arrintoodii way fashilantay oo fashil bay mataqaanaa iyo ku dhamaatay laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah kolley sidiisaba markii laba qof ay kala tagaan ama dalaaqdu waa saddexdaasna hadda waxaa u banan in ay isku soo noqdaan haddii xaaladan ay mataqaanaa isku afgartaan inay isku soo noqdaanna gabadha horta waa umul iyadoo umul leh iyo mataqaanaa iyay kala tageen mana wanaagsaneyn waxaa qurux badnaan lahaa in la sugo inta mataqaanaa ay ka baxayso umusheeda kadibna sida ayada mataqaanaa lagu sii daayo xataa waxyaabaha qaarkeen la yaaba ay soo gaara waxaa ka mid ahaa in xataa gurigii ay deganeed isaga mataqaanaa uu leeyahay in la yiri ka bax oo meel kale mataqaanaa raadso weli maxkamad lagaga saxiixay marka maxkamad baa arrinta ayada mataqaanaa lagaga saxiixay marka arrin mataqaanaa wanaagsanna ma ahayn inay heerkaas isla gaarta baasha aad baa mataqaanaa looga qurux badnaa dad caan baa ahaydeen baraha bulshada laga yaqaano marka in ilaa heer maxkamad ay mataqaanaa laga saxiixo ay gaarto ma wanaagsaneyn laakiin hadda way dhacday haddii xal la helayo inaad dib isku soo noqotaan annagu farxad bay inoo tahay waana ku faraxsannahay waana mataqaanaa aan reerreyn bay noo noqdaan dib isku soo noqon lahaydeen hadda waxaan weynaynaa madadaaladiinni wadajirkiinni isjeceylkiinni maanta waan la'nahay taasina innaga mataqaanaa waxbay noo dhimaysaa marka waxaa qurux badan haddii xal kale la helayo in laisku soo noqdo daawadayaal waxaa intaas kusoo koobaya barnaamijkan kooban aan ku dulmaraynay furitaanka gabadha Esther Kurlibax iyo ninkeeda ayay kala tageen intaan barnaamijkan kan xil kulmayno nabadgelyo